السلام عليكم soo dhawaada walaalaha ku xiran Birole Islamic Media waa walaalkiin Cabdullaahi Maxamed Birole ummadda aan akhrin taariikhdeeda ma qaabeynayso mustaqbalkeeda inkastoo ay dhibaatadu tahay mid daalisay nafteena waxaa jira taariikho aan dhimanayn iyo maalmo aan la ilaawi karin waayo ummadda islaamku waxay leedahay maalmo aan dhiman iyo xusuuso aan la ilaawi karin waxaana muuqaalkan idinkugu soo gudbin doonaa dagaalkii ugu horreeyay ee muslimiinta si foolka fool ah ula galaan gaalada waana dagaalkii Badar ama maalintii Al-Furqaan aanu taariikhdu dib ugu laabanno dagaalkii Badar wuxuu dhacay 13 Maarso sanadkii 624 miilaadiga oo ku aadaneed 17 Ramadaan sanadkii labaad ee hijrada dagaalkan waxa uu u dhaxeeyay ciidamadii muslimiinta oo uu hogaaminayay nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee xaruntooduna ahayd magaalada Madiina iyo mushrikiintii Quraysheed oo ay hogaaminayeen madaxdii Quraysheed xaruntooduna ahayd magaalada Makka dagaalkan Badar wuxuu ahaa dagaalkii koowaad ee si foolka fool ah ugu dhaca kufaartii reer Makka iyo muslimiinta taariikhda miilaadiga markay ahayd 13 Maarso sanadkii 624 miilaadiga kuna aadaneed 17 Ramadaan sanadkii labaad ee hijrada ayaa guuto ciidamo si fiican u hubaysani ka soo baxeen magaalada Makka ujeedkooduna ahaa inay ku duulaan asxaabta nabiga si kastaba ha ahaatee tiro yar oo dagaalyahano muslimiin ah tiradooda lagu qiyaaso 300 oo nin ayaa waxay deegaanka Badar dagaal adag kula galeen kun iyo ka badan oo dagaalyahano reer Makka ah kuwaasi oo guuldaro iyo shalayto kala tagay goobtii lagu dagaalamayay dagaalkan Badar jab lama filaan ah ku noqday ayaa ka raacay ciidamada reer Quraysheed ee ku soo duulay si ay u tirtiraan diinta Islaamka isku soo wada duub tiro yar oo muslimiin ah ayaa ku dhimatay dagaalkaasi Badar gaaladii soo duushayna rag badan oo madax iyo hogaamiyayaal leh ayaa kaga dhintay dagaalkani wuxuu noqday mid ka horseeday in mar labaad muslimiinta iyo ciidamada reer Makka dagaal isugu soo noqdaan kaasi oo ah dagaalka Uhud hadduu Allah awood leh ogolaado waxaan muuqaalkiisa xiga ku soo qaadan doonaa ama ugu hadli doonaa dagaalka Uhud